nabigu calayhi salaatu wasalaam heshiisyada uu galo siyaasadda nabigu calayhi salaatu wasalaam ma ahayn siyaasad manfaciya. siyaasadda manfaciga ee caalamka maanta aynu ku noolay waxay ku dhaqmaan waxa hadday arkaan in dani ugu jirtana way fuliyaan, haddii kalena waa la warwareejiyaa dadka lama fuliyo. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd waxa uu dadka la galo sidoodu u fulinayay walow ha qadhaadhaatane. laba qiso ayaan si kooban u tilmaamaya. mid waa qisadii xudayfa bnu اlyamani iyo aabihii ghaswatu badr. xudayfa bnu اlyamani iyo aabihii saxiixu muslimku xadiid ku yaalla oo madiine kusoo socday quraysho qabatay. dabeetana waxay dhahdeen nebi maxamed iyo ciidankiisa ku socotaan waa beder markii lagu soo socday. waxay dhahdeen may madiinaanu ku soconnaa. aakhirkii heshiis bay dhahdeen nala galaa ah waa idin sii daynaynaa laakiin bisharti inaydan ciidanka nebi maxamed soo raacin. waayahay bay dhahdeen sidii baa lagu soo daayey. nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidanku watay 312 nin bay hayeen. dagaalku muu soo talagelin. haafiladii qurayshadii inuu ishortaagaabuu ku soo talagalay. wadcigii wuu isbedelay. goob dagaal bay noqotoo dagaal qabsaday. waa laga tiro badanyo waa lagu saddex laabmaa. waa wakti uu ciidan u baahan yahay. waa wakti uu ku ducaynaya ilaahayow haddaad kooxdaa yar halaagto dunida dib lagugu caabudi maayaa ka mid ahay weedhuhu nebigu la calayhi salaatu wasalaam uu rag u baahan yahay. laakiin markay xudayfa bnulyamani iyo aabihii yimaadeen waxay dhahdeen ilaahay rasuulkiisiyo maxaanu yaallaa heshiis baanu gallay. oo muxuu heshiisku sheegayaa? wuxuu sheegayaa qurayshaanu kula heshiinay inaanu madiine qabannay aanan ka soo qayb gelin dagaalka nebi maxamed saasaana lagu soo daayay. wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam nafii lahum cahdahum wanastaciinu allaha bihi. ballankoodaan iyagana u oofinayna ilaahayna waa u kaalmaysanayaa iska taga buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. hadda waa gaalna nebi maxamed hala soo dagaalgelin waa intaa un. war gaal waxba sheegi maayo jihaadka dhinaciina kale kuma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam. yani siyaasaddiisu nebigu waxay ahayd inuu saadiq wax walba ka noqdo. sulxu xudaybiya markuu galay wuxuu sameeyey abu jandal iyo abu basiir ayaa yimi. abu jandal heshiis adag ayuu suhayl ibnu camr la gelayay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo caniidku ah. heshiisyada waxaa ka mid ahaa muslimiinta ciddii ka timaada ee mushrikiinta u timaada inaan la soo celin, ama muslimiinta gaalada la joogtae soo baxsatay islaamka u timaada in loo celiyo gaalada. qodobadii heshiiskay ku jirta waa qodob adag. iyadoo heshiiskaasi la isku waafaqay qoraalka inaan weliba la samayn buu isu soo taagay baa la yidhaahdaa inaanu dhalay ninka kani heshiiska nebiga la gelaya abujandal la yidhaahdo ayaa soo taagay. dabeetana wuxuu yidhi suhayl ibnu camar kan baa ugu horreeya waxaan heshiiska kula gelay haddaanad kan celinin heshiiska waxba kama jirayaan. nebigu calayhi salaatu wasalaam abujandal wuxuu yidhi iska noqo heshiis baanu la gallay. abujandal wuu qayliye wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo maanoo gaalo ka soo baxay oo silsiladahaasi igu xidhan yihin oo diinteeda layga fitbaynayo ayaad gaalo dib igu celinaysaa. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi isbir waxtasib, sabir oo xisaabso. ilaahay baa aakhire ka abaal marinaye sabir oo xisaabso. agu heshiis baan galo heshiiskaan fulinayaay. waa muslim gaal loo celinayo. waa masaa'ilkii ugu adkaaya saxaabadu soo marta. qisada dheer xudaybiya waa garanaysaa. abu basiir baa ka mid ah. abu basiir cutba ibn wasiid imaamu tabari sida uu sheegayo waliba nebiga calayhi salaatu wasalaam faamligooda hooyadii ahaa. waxaa la idhahaa saalima bintu cabdiyaziid ibnu hashim ibnu almuطalib baa hooyadii ahayd baa la idhahaa. abu basiir baa soo baxsaday madiinuu yimi intii heshiiska la seexday kadib. bash baa laba nin ka soo daba dirtay. waxay dhahdeen nebi maxamed waynu heshiinay heshiiskana waxaa ka mid ahaa muslimka naga soo baxsaday inaad nagu soo celinayso. ninkanina wuu soo baxsaday soo celi. nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u yeedhay abu basiir waxaa la yidhi heshiis baanu nimankan la gallay dib u raac. waa muslim gaal lagu celinayo. sababtuna waa maxay? heshiiskii uu nebigu la galay calayhi salaatu wasalaam buu ilaalinaya. siyaasa nubawiya kaasay ahayd aan munaafiqnimada aqoonin. dabeetana uu soo raacay waa lagu soo daray. dhexda markii la marayey ayuu mid labadii nin ka mida wuxuu yihi waniyo seeftaadu qurux badan abalhayi. seeftiisii buu u dhiibay. dabeetana seeftii buu galka ka saaray.
mid buu madaxa ka gooyey kii kalena wuu cararay kii kale uu soo eriyey madiina uga soo horreeyey kii kaloo kurbanayaa madiina soo galay nebigu wuxuu yidhi ninkii aad ugu dartay labadaydii nin midna waa dilay midna waa kan waa eriyaya nebigu wuxuu yidhi anigu anigii cahdigii ballankii waan oofiyey ninkii waa anigii idinku daray abubasiir baa magaalada soo gala wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninka kani waa dagaal buu oogayaaye hadduu heli lahaa cid u gargaarta wuxuu arkay inaanu heshiiska nebi moxamed marnaba ka baxayna ilaalinayo dabeetna uu iskaga baxay madiinaba xaggaa iyo xeebtuu iska degay muslimiinta kale ee gaalada la joogtay wixii baxsan karaa nebiga uma tagaane cidnadaasay iyana tagaano isaga u tagaan abujandal iyo kooxdaasaa baxsato u tagtay waxay idhahdaa rag dhowr boqol oo nin ku dhodhow buu helay dabeetana wuxuu u dhul jifeeyo uu galay nimankii odhan jiray quraysh safaradoodii ku ila isagu heshiis lama gelin dawladda kama tirsana isagu dawladda nebi maxamed kama tirsanaa heshiiska nebi maxamedna kuma jiro waana nusuloo gaalka carro meel cidlaa tegey xaraj kuma samaynin nebiga calayhi salaatu wasalaam